kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba meel walba dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada war degdega aynu ka helayna dalka Itoobiya madaxweyne hore oo walaalihiis iyo qaar ka mid ah eelkiisu la laayay waxaa weerar lagu dilay 3 wiil oo la dhashay madaxweynihii hore ee gobolka Oromada ee dalka Itoobiya kadib markii koox hubeysan ay weerar ku qaaday gurigiisa oo ku yaala gobolkaasi sida dadka deegaanka ay u sheegeen BBC-da qaybteeda Axmaariga waxaa sidoo kale halkaa lagu dilay 4 qof oo ay qaraabo dhow ahaayeen Alemayahu Atomsa dilkan ayaa ka dhacay deegaanka Konchi Kapele oo ka tirsan magaalada Jima ee gobolka Oromiya waxaana weerarka lagu eedeeyay inay ka dambeysay kooxda ay dawladda ku tilmaamtay argagixiso oo ka howlgasha halkaasi inkastoo kooxdan aysan weli ka hadlin dhacdadani dagaalo xoog leh oo u dhaxeeya ciidamada xulafada la ah dawladda Itoobiya iyo ciidamada Tigreega ayaa ka socda dhowr jaha oo kala ah galbeedka iyo waqooyiga deegaanka Axmaarada sidoo kale waxay dagaalo ka socdaan Benishangul Gumuz gobolka Mitekel galbeedka Itoobiya dhanka kale warar hordhac ayaa sheegay inuu dagaal xoogani ka socdo Rama xadka Eritrea iyo Tigray ciidamada jabhadda xoreynta Oromiya ayaa horumar weyn ka gaaray waxay markii ugu horeysay ku dagaalamayaan gaadiidka dagaalka ee loo yaqaan tiknikada dawladda Itoobiya oo sheegtay inay si buuxda ula wareegtay deegaanada Axmaarada iyo Cafarta dawladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday dhammaan dhulkii ay falaagada TPLF qabsadeen inay kala wareegeen kuwaasi oo ku yaala deegaanada Axmaarada iyo Cafarta xafiiska adeegga isgaarsiinta dawladda ayaa sheegay mar haddii deegaanadii ay TPLF laga xoreeyay talaabada xigta ay noqonayso dadkii ay dagaaladu barakiciyeen sidii ay deegaanadoodii dib ugu noqon lahaayeen waxay dawladda Itoobiya ku eedeysay TPLF bilooyinkii ay deegaanadaasi gacanta ku hayeen inay gabadfallo isugu jiro jirdil iyo kufsi ka geysteen taasi oo loo saaray guddi gabadfalladaasi soo baara go'aamadeenna ma aha kuba dareen laablakac lagu go'aamiyo waxaa sidaas yiri Abiy Ahmed hadalkan Abiy Ahmed ayaa ku soo beegmay xilli Axmaaradu ay aad uga cadhootay go'aankii dawladda dhawaan qaadatay ee inaysan ciidamadeedu Tigreega galin waqooyi Gondar waxaa ka socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada huwanta iyo kuwa Tigreega dagaalka waxaa si weyn uga qayb qaadanaya siday wararku sheegayaan diyaaradaha dagaalka militariga Itoobiya oo lagu amray inaysan galin gobolka Tigray ciidamada Itoobiya ayaa amar lagu siiyay inay ku ekaadaan gobolada Canfar iyo Amhara oo diris la ah gobolka Tigray kadib markii goboladaasi laga saaray dagaalamayaasha TPLF madaxa warfaafinta Itoobiya Dr. Legesse Tulu ayaa sheegay in go'aankani uu yahay mid kumeel gaar ah oo la midnimada qaran waa laga gaaray hadafkii koowaad ee laga lahaa taasi oo ahayd in TPLF laga xoreeyo meelihii ay qabsadeen ayuu yiri Dr. Legesse wuxuu sheegay in marka ay ku haboon tahay oo la qaadi doono wax talaabo ah inta ka horeysana ciidanka laga ilaalinayo in wax dhib ah uu soo gaaro dhanka kale wuxuu sheegay in kooxda TPLF ay qorsheynayso inay furato dacwado iyadoo askartii dagaalada kaga dhimatay ay ka dhigayso dad shacab ah balse Dr. Legesse waxa uu sheegay in dawladda ay xaq u leedahay iyo waajibaad in ay gasho gobolka Tigray xilli walba si ay u gudato waajibaadkeeda ka saarin ilaalinta qarannimada dalkeeda toddobaadkii hore wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Itoobiya Ridwan Hussein ayaa u sheegay diblomaasiyiin shisheeye oo Addis Ababa kula kulmay in Itoobiya aysan wax dan ah oo weyn ay ka lahayn in TPLF ay ka daba tagaan gobolka Tigray waxaa kale oo uu sheegay in dawladda ay xaqiijin doonto in TPLF aysan dib u soo qaadin weerar dambe iyadoo dawladda ay dhowri doonto xuquuqda aadanaha dagaalkan oo socday wax ka badan muddo sanad ah ayaa geystay khasaare culus oo bini'aadanimo TPLF ayaa sheegtay inay isaga baxday deegaanadii kale ee ay ka qabsatay gobolada kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xirtay terminalka Mafcon ee garoonka diyaaradaha aadan cadde kaasi oo ay adeegsan jireen qaramada midoobay Amisom iyo safaaradaha reer galbeedka warqad ka soo baxday maareeye ku-xigeenka garoonka aadan cadde Caydaruus Axmed Kaahiye ayaa lagu sheegay in go'aankani la qaatay kadib markii amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya duulimaadyada Amisom qaramada midoobay safaaradaha reer galbeedka ayaa lagu wargeliyay in hadda kadib ay adeegsan doonaan terminalka shacabka caadiga iyo qaybta VIP-da warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda oo ay heshay warbaahinta ayaa lagu sheegay in dhowr sababood oo loo xiray Mafcon oo ay ka mid tahay in ay adeegsadaan rakaab aanan ahayn Amisom iyo qaramada midoobay taas oo jibinaysa hanaanka socdaalka sharciga waxaa sidoo kale warqadda lagu sheegay in marar badan ay dhacday in duulimaadyada qaramada midoobay ay soo caga dhigteen garoonka iyagoo aan ka hor waaxda socdaalka u soo gudbinin dukumeentiyada rasmiga ah
wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in qaar ka mid ah duulimaadyada adeegsadaan Mafcon ay soo qaadeen dad aanan haysanin baasaboor taasoo ka dhigan inay si sharci darro ay ku soo galeen Soomaaliya. Jubbaland oo hab ka duwan Galmudug iyo Koonfur Galbeed u qabanaysa doorashada xubnaha golaha shacabka ee ka imaanaya deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalada Kismaayo. Guddiga doorashada ee Jubbaland ayaa soo gudbiyay liiska guddiyada ergada diyaarinaya waxayna isugu jiraan oday dhaqameedyo iyo bulshada rayidka ah. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Said waxay halkaani ku soo gudbinayaan guddiyada xulista ergooyinka kuraasta 6 ah ee la shaaciyay 23 bishaani kuwaasi oo kamid ah 43 kursi ee ku astaysan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday guddiga hirgelinta doorashada Jubbaland. doorashada 6 kursi ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka qabsoonto gudaha magaalo xeebeedka Kismaayo oo haatan laga dareemayo qabanqaabo xoogan. Jubbaland ayaa u muuqata inay si ka duwan u maamuli doonto doorashooyinkii ka dhacay Koonfur Galbeed iyo Galmudug waana maamul goboleedkii ugu horeeyay ee soo bandhiga guddiga soo xulista ergooyinka taasi oo aysan hore u sameeynin maamulada kale. sidoo kale waxay tallaabadani furi u noqon doontaa hanaanka daahfurnaanta ee doorashada golaha shacabka oo haatan cabasho xoogan ay ka muujinayaan xubnaha mucaaradka. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaacisay liiska xubnaha guddiyada ee soo xulaya ergada dooranaysa 6 kursi ee ugu horeysa. ugu dambeyntiina madaxweynayaashii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Farooli iyo Cabdiweli Cali Gaas oo wehelinaya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa maanta u safray Puntland. mas'uuliyiintan ay wehelinayaan xildhibaano iyo odayaal dhaqameed ayaa saacadaha soo socda gaari doona magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. ujeedka safarka madaxdani ayaa la xiriiray sida ay qayb ugu noqon lahaayeen dadaalada nabadeed ee lagu doonayay in lagu soo afjaro xiisadda dagaal ee Boosaaso. Faroole, Gaas iyo Sharmaake ayaa wada hadallo ka dhex bilaabi doona Puntland iyo BSF waxayna sidoo kale la kulmi doonaan isimada dhaqanka ee haatan ku howlan sidii wax looga qaban lahaa muranka ka dhashay xilka qaadistii agaasimihii BSF ta. socdaalka mas'uuliyiintani oo aad looga soo dhaweeyay ayaa ku soo beegmaya iyadoo xalay dani uu jeediyay khudbad xasaasi oo kaga hadlay xaalka Boosaaso kuna baaqay nabad. Puntland ayaa xaalad dagaal gashay kadib go'aankii xilka qaadista ee General Maxamuud Cismaan Dayano oo uu kaga hor yimid tallaabada uu qaaday madaxweynaha maamulkaasi.